Bismillahirrahmanirrahim. Horta markaan ka hadlayno dhalinyarada, dabcan dhalinyaradu waa haldoorka ummadda inta ugu badan population-ka bulshada qayb ay ka yihiin Soomaaliya. Dabcan markaan dib u milicsano dhibaatooyinka ugu badan ee dalka ka dhacay, dhalinyaradu door muhiim oo aad u weyn bay ku lahaayeen iyagoo loo adeegsanayo tuulalkii loo isticmaalayay caqabadihii iyo nabad darradii iyo waxyaabihii dhacay ayay qayb ka ahaayeen. Kooxooyinkii iyo waxyaabihii isbedelay ee dalka ka dhacay iyo burburkan waxaa sabab u ahaa iyagoo la adeegsanaya dhalinyarada sabab u ahaa. Laakiin muddooyinka markii aad u fiirsato runtii dhalinyaradu waxay sameeyeen abaabul kala duwan iyagoo kooxo iyo ururo iyo isku abaabulay, waxayna qayb ka noqdeen horumarka hadda dalka ka socda. Dabcan waxaad dareemi kartaa meelo kala duwan oo gobollada dalka iyo guud ahaan caasimadda markaad u fiirsato dhalinyaro kala duwan ayaa isku abaabushay inay horumarka qayb ka noqdaan iyagoo u abaabulan markaas kooxo iyo maaragtay magacyo kala duwan iyagoo samaystay. Waana horumar hadda aan isleeyahay dhinaca amniga iyo nabadda dhalinyarada Soomaaliyeed maaragtay ay u jihaysteen dalkana horumar uu ku gaari karaa. Markaad u fiirsato dhalinyaradu waad aragtay askar iyo kooxooyinkii burburkii marka laga soo tago hadda dabcan waxay u taagan yihiin inay horumar ka sameeyaan dhinaca nabadgelyada, inay u istaagaan sidii maaragtay amni iyo horumar dalkan u gaari lahaa. Marka waxaan isleeyahay door muhiim ah ayay ku leeyihiin dhalinyarada horumarka iyo nabadda. Waan isleeyahay haddii loo adeegsado dowladda iyo hay'adaha maxalliga iyo dadku streamkii loo mari lahaa ay u noqoto in dalku horumar weyn uu ka gaari karo oo maaragtay baraaran ay ka dhici karto mustaqbalka soo socdana ay dhalinyaradu haldoor u noqon karaan horumarka. Dooyinka ugu dambeeyay waddankeena Soomaaliya waxaa aad u soo shacbahayay ururo kala duwan oo waddanka ka dhisan. ururadaas waxay mataqaanaa mabaadi'dooda guud waxay ahayd inay mataqaanaa ka qayb qaataan in dhalinyarada mataqaanaa ay ku abaabulaan si ay uga qayb qaadan lahayn arrimaha amniga iyo nabadda. Ilaan waxaan soo aragnay arrimaha amniga iyo nabadda ahmiyad gaar ah ay noo leedahay. Dhibaatooyinkan haysta waddankeena oo mataqaanaa sida maaragtay dib u dhaca arrimaha bulshada xagga markii la fiiriyo waxbarashada waxaa asaas u ah maaragtay amni darrada waddanka taagan. Marka anagoo taas fiirinayno ayaan waxaan is dhahnay bal inaan sidee uga qayb qaadan karnaa maaragtay arrimaha amniga iyo nabadda si aan mataqaanaa dhibaatooyinkan haysta oo xagga waxbarasho la'aanta iyo caafimaad darrada iyo mataqaanaa burburkii maaragtay gobollada sokeeye ay sababeen sidii aan mataqaanaa xal ugu gaari lahayn ayaan waxaan is dhahnay bal dhalinyaro ahaan is abaabulo kadibna mataqaanaa fikradihii ahaa in dhallinyaradeenna loo adeegsado maaragtay xagga qallaasaha in fikraddaas ay tahay wax ka bedelmo oo loo adeegsado dhalinyaro ku wajahan inay mataqaanaa waddanka marxaladda waqtigan uu ku sugan yahay ay ka bedelaan. Maaragtay faa'iidooyin badan baa laga arkay dhalinyaro badan baa mataqaanaa ku takhasusay inay maaragtay dowladnimada qayb ka qaataan. Doorashadii ugu dambeysay baa dhalinyaro badan ka qayb qaadatay. Kuwa baa ku soo baxay inay xildhibaan noqdaan, kuwa baa mataqaanaa wasiiriin loo magacaabay, kuwa baa xildhibaanada dowlad goboleedyada ka mid noqday. Marka waxyaalahaas kulli waxay ku timaaday mataqaanaa in dhalinyarada ay is abaabulaan ay arkaan mataqaanaa inay ayaga ay maaragtay waddankaanayta mataqaanaa waxay ka qaban karaan. Marka insha Allah dhammaanteen waxaan ku baraarugsannahay ahmiyaddaas gaarka ah ee arrimaha nabadda iyo amniga inaan mataqaanaa aan ku dadaalno wixii maaragtay tabar iyo mataqaanaa aqoon iyo mataqaanaa fikrado kala duwan aan isku dhaafsani karno si hadafkaasayto koowaad aanu leenahay aan u hiigsano. Dadaal badan baan ku bixin doonaa insha Allah. Marka waan soo dhaweynaynaa hay'adaha mataqaanaa ka shaqeeya arrimaha mataqaanaa peace building-ka in ay maaragtay dhalinyarada ku abaabulaan inay maaragtay ka qayb qaadashadooda arrimaha nabadda iyo maxaa la dhahaa amniga iyo in dhalinyaro badan mataqaanaa ay ku dhiirigeliyaan in siyaasadda waddanka ay qayb ka noqdaan. aad aan u mahadcelinaynaa mashruucanna. Marka waxaan isleeyahay waa mashruuc wax badan ka tari doono arrimahaas ay dalka halkaas aan ku soo xusnay in mataqaanaa maaragtay guulo badan laga gaaro insha Allah. Marka waa u mahadcelinaa mar labaad iyo mar saddexaad. aad aan u mahadsantihiin.